haddii aad maskigan baratid amaba aad baroweysid waan huba waad ka heli doontaa oo wuxuu kuu noqon doonaa maskiyada aad ugu jeceshahay ayuu booskooda ku gali doonaa. maskigan wejigaaga wax badan ayuu ka bedelayaa, qurxin haddee tahay kaali iska arag ayuu wejigaaga ka dhigayaa. waxaana laga sameynayaa waa flaxseed. daawo videoga. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسو دوادا كوين هاج صوم وندين سلامي مال والبوادون ذكا جوكتيني حلو والبويدين تهاي وحن إذين ودرجينا يا قيري عافيمات دمانتينا سود دوادا كسو دوادا قلبي فرن آدي هذا ومات سنتين ومهد سنتين إنا إذين دونا مرنا وكمدالاي كمن عاجسين من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله oo ii ogolaaday inaan idin soo duubo video kaleeto cusub anigoo caafimaad qabo. idinkana waxaa rajeynaa inaa caafimaad qabtiin, inta xanuunsan ilaahay caafimaad taam ha siiyo. allahumma aamiin. asxaabteyda qaaliga maanta waxaa noo wadaa flaxseed face mask. runtii maskigan wax badan ayuu wejigaaga ka bedelayaa haddii aad isticmaashid oo aad daa'imatid. haddii aad baratidna waan hubaa in aadan ka maarmi doonin. markii aan soo geliyey faa'iidooyinka flaxseedka abaya ayaa iga soo codsatay sida wejiga loogu isticmaalo, sida timaha loogu isticmaalo noo soo geliya ayay dhahday. hadda waxaan ka bilaabi doonaa wejiga insha allah. qeybaha kaleetana way soo socdaan hadduu ilaahay subxaana watacaala raali ka dhigo. maxaa u baahanahay? waxaa u baahanahay wax aada iyo aada u fudud, 3 shay oo keliya bisa u baahanahay. meeshan waxaa ku haystaa waa flaxseed oo la jijibiyey. aniga mashiinka oo waxaa iga halaa waxyaabaha budaha lagu shiido, marka kanaa soo gatay oo jajaban. xoog muu jajabsano laakiin saanaa rabaa. scrabna woo ii sameynaya, maski ahaanna woo ii siinaya. meeshan waxaa ku haystaa waa yogurt. haddii wadankan aa joogtid magacaasaa lagu dhahaa, waa ujeedin linzat aa lahaa khabrokan, yacni la jijibiyey flaxseed oo la jijibiyey. marka meeshan waxaa ku haystaa yogurt aan wax lahayn oo plain ah ama dhadhan lahayn. meeshan waxaa ku haystaa rose water. haddii yogurtka dadaa jiro yogurtka ku xasaasiyoonayo, haddii aad yogurtka ku xasaasiyoonaysid waxaa isticmaali kartaa caanaha caadiga ama caano boore ayaad biyo ku qaseysa ayaa isticmaalaysaa. sidoo kaleetana malabna waa ku darsan kartaa haddii aad rabtid insha allah. hadda waxaa soo qaadeynaa marka hore flaxseedkii ayaan furayaa iyo weelkii aan ku qasi lahayn. hadhow anigu weel ayaan ku gedisanaa, laakiin bacda waxaan jeclaystay inaan idin siiyo. dadka ayaa mar walba iso weydiinayo hadhow sida markaas anigana ay ugu fududaato. bismillah. 2 qaando oo flaxseed ayaa ku shubay. kadib waxaa ku shubayaa 2 qaando oo yogurt. kadibna waxaa ku shubayaa wax yar oo rose water amaba biyaha ubaxa. weli haddii maska keligiis aa u rabtid isku day inaad budo ka dhigatid. haddii aad budo ka dhigtid waxaa waaye kareem camal ayuu kuu noqonaya isla markiiba. ujeedin wax yar oo waxaan ku darayaa flaxseed ah. ujeedin aan umaleynaa maasha allah tabaarakallah aad ayuu u fudud yahay. kaliya markii aad saan u qastid horey ma ka marsanaysid. waxaad sameynaysaa ilaa iyo 5 daqiiqo 10 daqiiqo ayaa dhigaysaa. waxaa loo baahan yahay biyihii ubaxa iyo yogurtkii iyo flaxseedka inay isku dhiimaan, ay isku baxaan oo ay isku noqdaan. hadda heer maasha allah tabaarakallah. runtii flaxseedka wejigaaga aad iyo aad ayuu u qurxinayaa. haddii aad daa'imatid wax walba wuu kaa nadiifinayaa, wejigaagana wuu ku kala jiidayaa. kala jiidka markaan dhahayana wejigaaga haddii uu si jacjac iyo waxaas leeyahay kaa nadiifinayaa. waxaan rabaa
inaan ka hadlo dadka da'da ah aad iyo aad u anfacaya. collagen ayaa ku jiro, collagenkaasna wejiga miinmiinta aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay, ayagana way ka faa'iideysan karaan. ha ujeedin marba markii ka dambeyso wuu soo dhuuqayaa oo hadayti cad ayuu ahaay, hadda kalarkii flaxseedka ayaa soo baxayo sababtoo ah wuu isku dhiimay. ha ujeedin runtii yogurtkana wejiga ayuu qaboojiyaa, wejiga ayuu ku qaboojinayaa, maasha Allah ayuu kaaga dhigayaa. sidoo kale yogurtka wuxuu ku fiican yahay maqaarkii dhintay ayuu wejiga ka qaadaa. rose waterkana wejiga ayuu nadiifiyaa wuuna dhalaaliyaa. aad iyo aad 3 shay oo wada faa'iido ah waaye, ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay. sidee u isticmaalaysaa marka? waxaad u isticmaalaysaa ugu horeen wejigaaga waxaad ku soo dhaqaysaa biyo qandac ah, sida mar walba baan dhaho. shaambo oo face wash ahna waa ku soo dhaqanaysaa wejigaaga oo nadiif ayaa ka soo dhigaysaa. markaas kadib waxaad soo qaadaysaa maskiga ayaa wejigaaga marinaysaa. wejigaaga markii ugu horeeya aad marisid waxaad dareemaysaa qawow, maasha Allah tabaarakallah. wejigaaga ayaad marinaysaa, waa idin tusiyo sida iiga barateen mar walbo. waa ujeediin saas ayaa wejigaaga u saaraysaa yogurtkii oo qabow ya flaxseedkii oo saliidiisa iyo nafaqadiisa iyo jeelkiisa wato, biyaha ubaxa oo kasii daran. maasha Allah tabaarakallah, wejigaaga lagama sheekeyn karo. asxaabteeda qaaliga, waa ujeediin maskigan waxaa marsanaysaa isbuucii adiga 2 jeer ilaa iyo 3 jeer. hadduu budo zaa'id yahay waxaa sameynaysaa caadi u marsanay, laakiin hadduu saan yahay oo sidaan hadaani midkaan haysto oo jajaban uu yahay, marka ugu horeeyo maalinta ugu horeysa aa marsatay waa ku scrub gareynaysaa. marka ku scrub gareysid kadib waa iska dhaqaysaa, laakiin mararka kale ma ku scrub gareynaysid sababtoo ah qofka wejigiisa qalalan yahay waxaa loogu talagalay isbuucii 1 mar inuu wejigiisa scrub gareeyo. qofka wejiga saliida lehna waxaa loogu talagalay isbuucii 2 jeer inuu scrub gareeyo. marka sidaas darteed hadduu wejigaaga qalalan yahay 1 mar ayaa kugu filan, maadaama isbuucii 3 mar ay isticmaalaysid. marka kalena waxaa sameynaysaa oo kaliya waa marsanaysaa kadibna waa dhaqaysaa adigoo wax scrub aad ku sameynin. haddii wejigaaga saliid leeyahayna isbuucii maadaama 3 jeer aad marsanaysid 2 jeer scrub ku sameynaysaa, 1 jeerna caadi ayaa iskaga dhaqaysaa. scrubkan waa isla fahamna asxaabta cusub, scrubka wejiga sidaas ayaa loo dhahaa, tartiib. maxaa la dhahaa xoog ma loo isticmaalo, wejiga si tartiib ah. waa ujeediin weli markuu xoogaa qalalo kulli wuu soo jijibinayaa. yogurtka maasha Allah ayaa si hadana ku caawinaya wejigaaga ku jijibinayo. saliid iyo nafaqo ayaa ku jirto yogurtka iyabo flaxseedka, intaba wejigaaga maasha Allah tabaarakallah ay kaaga dhigayaan. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin videogeena maanta, aana ka heli doontiin dhammaantiina inta iga soo codsatay iyo inta aan iga soo codsaninba. haddaa video ka heshin fadlan like saara, la wadaaga ehelkiina asxaabtiina. haddaa su-aal qabtiinna qaybta commentiga iigu dhaafa. inta aan video lamid ah ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaan Allah.